داود يا شيخنا قيمها له وربحن دقرك أي صوماليا السلام عليكم ورحمة الله ملكتو أن قد ونيسن هاتا واحد كسو دواتن برنامج قاره وأن وقفنا قيندو إنه قدر كله يقان معانك أما سكروغا حدا بقى برنامج كان وحا مرتي إنه قاعد دكتور شعيب يوسف حاج وكتر سنتقاتيت الصوماليات وكهول قال عصبة وزارة عافيماتك دلك بغرطوية السعودي إريبيا دكتور شعيب وحا نلصعنا إن عذرك معانك أما سكرو قلو يقان إن مدائنات وكهول نت أما دراسات آد كسمينيسي بل دباتوين كوليه إسيابه وحلوغة قبنكرو هذا بعضو مجتمع قود با قارهان أمد الصوماليات ملكستو إعاوة نقل حريرتبا أما يكادا ونيسوبا maxaa cudurkan skuruuga muxuu yahay horta macaanka dad waxay ku magacaabaan macaanka dadna waxay ku magacaabaan skuruuga marka cudurkan skuruuga mar hadii adiga aad ka tirsan tahay taqaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Riyadh bal tafaasiil kooban ma naga siin kartaa caawo cudurka macaanka waa cudur muxuu kamid ah cudurrada raaga ama chronic disease loo yaqaan laba nooc ayaa jira cudurka muxuu macaanka nooc ku dhaca dadka da'da yar iyo nooc ku dhaca da'da marka ay dadku gaaraan da'dooda 35 iyo wixii ka weyn nooca hore waxa weeye waa nooca loo yaqaan insulin dependent diabetes mellitus waxa weeye waa nooc qofku waxaan insulin ahayn aan uusan qaadan karin oo aysan waxba ka tarin maxaa yeelay muxuu insulinka jirkiisa waa muxuu waa gebagabo oo ma jiro nooca labaad wuxuu ku dhacaa dadka da'doodu markii ay gaaraan 35 sano iyo wixii ka koreeya noocan labaad waxa lagu daaweeyaa inta badan kiniiniyaal qofka la siiyo intaan daawada la gelin qofka waxa lagu la taliyaa inuu hab nololeedkiisa wax ka bedelo inuu sameeyo exercise ama jimicsi sameeyo inuu cunada uu cunayo ka taxadaro waxyaalaha macmacaanka badan macmacaanka ay ku jirto muxuu inuu si joogto ah ula socdo muxuu takhtarka ula socdo عذر شعيب محاكينا عذر كمعانك عذر كمعانك أما عذر كأفكا قلات لو يقان دايبيتسك وحوي ونوع كميدا عذر هذا محوها كرونيكا أما داها أو راجع وحاجرة لون نوع وحاليها دايبيتس ميليتس oo cudurka muxuu sukuruga Soomaaliya u taqaano iyo cudurka oo asagana cudurka sukuruga la yiraahdo laakiin ku dhaca kaliyaha oo asaguna lagu yaqaano kaali badan iyo oon badan oo qofku maalintii 20 litir ka badan uu kaadshayo intaasoo biyana in la mid inuu cabo u baahan yahay laakiin caawa barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa cudurka sukuruga Soomaaliya u taqaano ama macaanka loo yaqaano cudurkaas wuxuu ka mid yahay cudurrada raaga sidaan u sheegnay ma aha cudur la isqaadsiyo ma aha cudur ku yimaada dhaxaltooyo toos ah oo hadii waalidku uu qabo caruurta uu gudbin karo laakiin waxa loo yaqaanaa cudur inuu yahay family gooniya yani hadii dad ehla ama qaraabo ah oo qaba cudurka geneskiisa oo jirkooda ku jiro way dhici kartaa inay u gudbiyaan caruurtooda doctor adigoo raali ma jiraan wax uu qofka ku garan karo in cudurkaasi uu qabo ama uu haleelay cudurka macaanka laba calaamadood oo asaasi ah lagu gartaa jira waxa weeye kaadi badan oo qofku uu isku arko iyo oon badan labadaas waxay tahay asaasiga qofka inta badan qof markuu takhtarka u yimaado uu ka sheegto waxa dhici karta calaamado kale lagu maaragtay lagu garan karo qofkii in miisaankiisa hoos u dhaco in qofkii maaragtay muxuu ay appetite ama yani cunadii ay muxuu u cuni jiray cunno ka yar maaragtay oo cuno laakiin guud ahaan labada calaamadood ugu weyn oo lagu garan karo waxa weeye qofkii oon badan iyo kaadi badan marka kadib qofku asaga uu iimaanay wuxuu ka sheeganayaa takhtarka markuu iimaado wuxuu ka sheeganayaa bariyahan dambe waxaan isku arkay kaadi badan iyo oon fara badan doctor Shaiib hadaba qofka marka uu haleelo ama uu ku dhaco cudurka macaanka ama sukuruga loo yaqaan qaabkeeba uu la dagaalami karaa si oo markaasi cudurkaasi uu noqdo mid isagu jirkiisa ka baxa ama daayaba dhibaatooyinkii guud ahaan uu ku hayay cudurka macaanka
ma jiro wax gooni ah oo la dhihi karo waa looga hortegi karaa laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo yani ka qayb qaadan kara cudurkaas in khatartiisu ay yaraato مثلا waxay qofka haduu qaab nololeedkiisa marka horeba uu yahay qof asagu dhowrsan yani qof مثلا hadaan anagu dad muslim nahay qofkii haduu qofka salaada tukado jimicsi buu sameeyaa 5 goor maalintii tukanaya shantaas goor waxay keeni kartaa in qofku uu jimicsi xubnihiisa oo dhan ay dhaqdhaqaaqaan muxuu ahaa marka jimicsigu waxa weeye qaab kamid ah oo looga hortago cudurka sukarowga in dhaco waxa kale oo kamid ah qofku cunada uu cunayo in uu maaragtay cunno nadiif cuno inuu cunno oo maaragtay isku dheelitiran cuno waxa kale oo muxuu ahaa sheeg lagaga hortagi karaa qofku inuu waxyaalaha dhaawac gaarsiin kara ama damage gaarsiin kara qanjirka pancreaska oo asaaska u ah inuu sameeyo muxuu ahaa maadada la yiraahdo insulinka sokorta marka ay maaragtay dhiig gasho ka shaqaysiisa ayaa iyaduna lagaga hortagi karaa sida sigaarka oo laga fogaado khamriga oo laga fogaado jaadka oo laga fogaado iyo wax alla wixii qofka nafsadiisa dhibaato weyn u geyn kara cudurka macaanka dhowr nooc ayaa loo daweeyaa sidii aan maaragtay hore ugu sheegay laba nooc weeye cudurka macaanka qaybta hore oo ah qaybta ku dhacda ilmuhu ama ay ku dhashaan ama ayagoo da'doodu yar tahay ku soo shacbaxa waxa la yiraahdaa noocaas waa nooca insulinka aan jirka laga helin oo pancreasku uusan sameyn maadada insulinka ahayd dhacaanka insulinka haduusan jirka jirin marka waxa weeye qofkii in la siiyo wax bedelkeed ah marka waxa qofka la siiyaa insulin oo dhowr nooc waagi hore waxa la isticmaali jiray insulin nooc la yiraahdo muxuu ahaa saafi iyo nooc la yiraahdo cikr oo caanaha kale u eg ayaa labadaas la isugu dari jiray labadoodana yani waxay ku kala duwanaan midna shaqadeeda waa degdeg midna shaqadeeda xoogaa saacado badan ayay qaadanaysaa sidii ay u falgasho sanooyinkan dambe se waxaa dhacday in maaragtay la helay nooc labadii oo isku jira insulinkii labadii nooc isku jira qofka la siin karo marka waxaa loo qiyaasayaa qofka inta jurcada ama inta uu u baahan yahay loo qiyaasaya waxaa la siinaya 2 goor ama marmarka qaarkood 3 goor hadba sida qofku maaragtay baahidiisu ay tahay nooca labaad oo ah nooca ku dhaca dadka da'doodu ay ka sareyso 35 noocaas inta badan waxaa lagu daaweeyaa kiniin baa lagu daaweeyaa waa dhici kartaa laakiin in marmarka qaarkood qofku sababa qaarkood مثلا haduu shil galo hadii uu مثلا qalitaan galo hadii maarag cudurro kale ay la soo maaragtay dugaalaan oo kale in uu u baahdo in waqti kooban la siiyo insulin ama marmarka qaarkood waxaa dhici karta qofka in sokortiisii dhiigga ku jirtay in yani la control waayo oo hoos loo soo dhigi waayo markaas takhaatuurtu waxay isticmaalaan in la siiyo muddo insulin la siiyo si sokortii hoos loogu soo dhigo marka ka bacdi kiniiniga loo cisho hadaba doctor waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka maxaa guud ahaan talo aad siin lahayd dadka haatan qaba cudurka macaanka ama loo yaqaan sukarowga guud ahaan waxaa jirta la yiraahdo prevention is better than cure ama afka carabiga loo yiraahdo alwiqaaya khayrun min al-ilaaj ka hortaga ayaa ka wanaagsan daweynta qofku marka guud ahaan waa inuu iska dhowraa wax alla wixii keeni kara jirkiisa wax u dhimi kara cudurka macaanka kaliya ma aha cudurrada dhan laakiin gaar ahaan muxuu ahaa qofka marka ugu horeysa waa inuu ilaaliyo inaan wasnigiisa jirka inuusan yani miisaankiisa jirka inuusan xad dhaaf noqon taana wuxuu uga hortagi karaa inuu cuno muxuu ahaa cunno isku maaragtay miisaaman mideeda kale waa inuu sameeyo jimicsi joogto ah mideeda kale waa inuu ka fogaado waxyaalaha kale oo dhibaatada u keenaya sida khamriga sigaarka jaadka dawooyinka laftigooda oo aan takhtarku ku qorin oo maaragtay dad ay iska caadaystaan inay intay muxuu ahaa farmashiyaha tagaan ama muxuu ahaa qof kale oo ay yaqaaniin ay ka qaataan oo ay iska cunaan ayaga oo aan takhtar u qorin laftigooda dhibaato badan bay keeni karaan marka intaa ayaa muxuu ahaa asaas u ah oo looga hortagi karaa muxuu ahaa dadka aan cudurka qabin dadka cudurka qaba waxaa asaas ah in ay takhtar la socdaan oo dhiigga muxuu ahaa laga baaro oo la ogaado inta ay sokortu la eg tahay daawada loo qoro si joogta ay u qaataan waana muhiim in qofku uu muxuu ahaa
hab nololeedkiisa wax ka bedelo hadduu yahay qof aan jimicsi badan sameyn waa inuu bilaabo inuu jimicsi sameeyo waa inuu daawada qaato waa in cunnada uu cunayo cunno isku miisaanan ay tahay waa inuu ka fogaado waxyaalaha macaanka ziyaadada sida sokorta shaaha lagu daro kale daawayaasheenii qiimaha leh intaasi waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkanii gaarka waana caawa kusoo qaadnay cudurka loo yaqaan macaanka ama sokorowga oo marti inooga ahaa دكتور شعيب يوسف حاجي آذن أو كتر سنة تقاتل الصوماليات قصوا مقالة الرياض انت برنامج كان مثل من الله عندي بقول كل من دونه وعلى جامع علمي على كوسو إذن له نبت كل يوم